saraakiisha qaybta 27aad oo horkacayo Genaraal Axmed Maxamed Maxamuud Tareedisho qaybna ay ka ahaayeen Korneel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakay taliyaha guutada shanaad, Korneel Sanay Cabdulle Nuur taliyaha guutada afraad iyo gudoomiyaha degmada Bulaburde Faysal Haajir Aadan ayaa waxa ay soo kormeereen xeradii hore ee dab iyo dhagax, taasi oo la rabo in la dhiso maadaama ciidamada ay degan yihiin gudaha magaalada, lana rabo in loo baxsho banaanka si ay isku socodka gudaha magaalada oo iskugu furmo maadaama ciidamada ay meelo muhiim ah ay ka dhex degan yihiin gudaha degmada. Xeradani ayaa ah xeradii hore ee ciidamada militariga dawladii hore burburkii ilaa iyo haddana wax dib u dayactir aan lagu sameyn, balse hadda waxa uu qorshuhu yahay in la dhiso ay sideedii horena ay ku soo noqoto. Degmada Bulaburde oo go'doon ah ku dhawaad 7 sano ayaa isha kaliya ee u furan waxa ay tahay eelaboorka, balse hadda waxa ay u muuqataa mid ay ka qaadmayso xayiraadda maadaama saraakiishii ugu sarreysay qaybta 27aad ee maalmahani ay ku sugan yihiin degmada sidii ay deegaanada cadowga ay uga sifeyn lahaayeen iskuna furi lahaayeen degmooyinka Bulaburde ilaa iyo Jalalaqsi. Sikriya Ali Raage, SNA Radio, degmada Bulaburde, gobolka Hiiraan.